fursaddan waxaan uga faa'iideysanaynaa inaan uga mahadcelino walaalaheena dowladda Qatar oo wakiil ka yahay safiirka halka u fadhiya Soomaaliya maanta saa arkaysaan waxay noo keeneen qalab isugu jira basas loogu talagalay gobolka Banaadir iyo ummadda Soomaaliyeed lagu kaalmeeyo iyo laba wiish oo ah kuwa alaabta konteynarada ka dejiya maraakiibta qisayana marka labada wiish dekada runtii waxay qabtay baahi weyn oo runtii culays badan ka jira dekada oo in muddo ka jiray marka waxaan leenahay labadaas wiish oo dowladda waxaa lagu wareejiyay iyaguna wax weyn bay ka bedelayaan adeegii loo hayay maraakiibta keenta konteynarada in si waqtiga la soo koobo wax looga dejinayo ama lagu rarayo si aan ula socotaan badeecadaha way soo kordhayaan bil bisha ka dambaysa marka runtii culays weyn oo ka fogay dekada Muqdisho ayuu noqonayaa waxaan rajaynaynaa in anagana si fiican uga faa'iideysano si wanaagsan loo maamulo lana waafajiyo heshiiska kula jirno kambaniga dekada maamula ku haysta iyadoo la raacsiinayo heshiiskii la galay marka horeba qodobada heshiiska wadiga la waafajin doona insha Allah waxaan ku dadaalaynaa inaan dekada waa meel ganacsi waa in iyadu iibsan kartaa waxyaabo u baahan tahay oo intaysan noqon sida hay'adaha kale u baahan kaalmada waxaan rajaynaynaa mustaqbalkana inaan dekada isku filaato aysan noqon hay'ad la kaalmeeyo in hay'ad iyadu wax soo saarkeeda iska maalgelisa insha Allah. Wa salaamu alaykum.